السلام عليكم أصحاب قالي والسلام ميل بad joogtaan waxaad ilaahay nabad farxad iyo caafimaad ku arag soo dhawaada channelkeena alxamdulilah shukr rabbil caalamiin maanta iyo video cusub qada yar oo fudud oo macaan daawasho wacan iyo sidaan u sameeyey bismillaah haddana waxaa bilaabanayaa inaan sameeyo doorshaha waxaa ku haystaa meeshaas alaabtii aan ka sameyn lahaa doorshaha iyo weelka foornada aan la gelin lahaa waxaan soo qaadanayaa blender waxaan ku shiidayaa alaabta sokorta waxaa waaye nus koob burka waxaa waaye hal koob caanaha 4 qaado waaye caanaha 4 qaado saliidda waxaa waaye 3 qaado nus qaado faniile ah hal qaado oo baking powder ah soo labada xabo ukunta ku ridayaa labada xabo ukunta markaa ku rido waxaan kaloo ku shubayaa nus koobka sokorta ah nus koobka sokorta ku shubayaa nus koobka sokorta markaa ku shubo waxaa kaloo ku shubayaa saliidda caanaha saliidda waxaa waaye 3 qaado caanaha waxaa waaye 4 qaado oo qaadada cuntada lagu cuno aa ku cabiranaysaa 3 qaado waaye saliidda caanahana 4 qaado baking powderka hal qaado waaye burka hal koob waaye sokorta nus koob waaye waxaa kaloo meesha ku haystaa vanilla ama carfiso oo nus qaado ah soo saas iskugu dardarayaa blenderka ku shiidayaa blenderka si fiican marka u shiido waxaa sameynayaa burkiya gadaal uga dari doonaa maasha allah saas usoo shiidayaa haddana waxaa baaquliga soo qaatay waa soo shiiday baaquliga ku shubayaa smoothie aan soo shiiday sokorta ukunta saliidda caanihii vaniiladii waxaa sameynayaa markaas baaquli ugu shubo waxaan ku darayaa burka ku darayaa kabacdina baking powderka ku darayaa kabacdina waa qasayaa markaa qasa maasha allah doorshaha saasuu diyaar ku yahay waxaa waaye waxaa ku shubayaa weelkii foornada aan la gelin lahaa maasha allah waa kaas weelkaa kusoo shubay foornadaa soo geliyey foornada saa u isticmaalo aan rabaa inaan intaa meeshaan aan ka muujiyo waxaa waaye meeshaas temperatureha ama kuleelka wuxuu ii joogaa 160 intana waxaa waaye kor hoos qaybta aa rabtid inaa markaas shidid ana hadda waxaa ii shidan kor iyo hoosaa ii shidan saa ujeediinbo waxaa waaye meeshaas kor iyo hoosaa ka dhigayaa temperatureda ama kuleelkana wuxuu ii joogaa 160 ama 160 degrees celsius inta waxaa waaye timeka ama waqtiga wuxuu ii joogaa 35 daqiiqo waxaa laga yaabaa 35 daqiiqo ka hor xataa inuu kuu bislaado doorshahaasoo mar walba waxaa fiican inaa ag joogtid saacadda waaye harkaas 35 daqiiqaan ka dhigayaa aan ku seet gareynayaa saacadda temperatureda waxaa waaye 160 ama 160 mar walba waxaa fiican dab kuleel zaid aan ahayn kuleel yarna aan ahayn inaa wax ku hagaajisid sida wixii aa karinaysid ee waqti u qaataan tartiib ay usoo bislaadaan soo ujeediin temperature waxaa waaye 160 saacadda waxaa waaye 35 maasha allah doorshii usoo bislaaday sidaasaa foornada u isticmaala waa soo gelin doonaa anuu rooti ku dubaayo biidnillaah
maasha allah doorshii saasuu kusoo baxay markaa gediyo dhankiisa hoosana maasha allah waaye bushbush waaye soo istaraashiyeer nadiifaa ku daboolaya inta waxaa ku haystaa wax aa rabo inaan korka uga shubo doorshaha nuskoob sokoraa paankaas kusoo shubo markuu dhalaalo wax yar cusbaan ku darayaa marka sokorta dhalaasho waxaa sameynayaa hal qaado oo badharaan kusoo darayaa ama subag ah markaa halka qaado kusoo daro waxaa kusoo darayaa wax yar oo whipping cream ah kabacdina waxaan ku shubayaa maxaa la dhahaa tufaax waaye 2 xabo tufaax oo si yaryar usoo jarjaray tufaaxa markaa ku rido waxaan sameynayaa liin dhanaan yaraa ku miirayaa maasha allah soos yaroo waxaa waaye aan rabo inaad doorshaha korka uga shubo markuu soo bislaado sooska doorshiyo asagana maasha allah diyaar ah aa korka uga shubayaa maasha allah doorshii soo yar qaboobay dhankiisa hoosena saasuu kusoo baxay maasha allah waa ka gedinayaa weelka jileec waaye isaga dhan sponge waaye sooskia korka uga soo shubayaa kabacdina waxaa sameyn doonaa qumbo yar qumbo shiidan wax yaraa waxaa rabaa inaa geesaha uga wareejiyo maasha allah doorshadeena sidaasuu diyaar ku yahay waxaa sameyn doonaa waxyaalaha kaleeto aa bilaabayaa inaan kariyo qumbaha waxaa waaye qumbo shiidan haddaa haysanin waxaa sameyn kartaa icing sugar ama sokorta shiidan aa korka uga bilbilan kartaa haddana waxaa bilaabayaa inaa bariiska kariyo digsiyaa dabka soo saartay biyaa kusoo shubanayaa biyo markaa kusoo shubto waxaan kusoo ridayaa carfis bay leaf waaye qorfo dhagayare wax yaroo heel ah intaasaa ku shubayaa haddana waxaa sameynaya waxaan kusoo darayaa hal qaado oo buuxdo oo badhar ah haddaa rabin badharka waxaa sameyn kartaa qaado cusbaa kusoo daray waxaa sameyn kartaa saliida isticmaali kartaa badharka waxaa waaye cuntada ugu macaaneeyaa wixii la shiilaya wixii la karinaayo kulli macaanuu ka dhigayaa haddaa rabin saliida isticmaali kartaa soo badharkaasas ugu soo shubayaa kabacdina waa daboolayaa ilaa biyaha ay kasoo karkaraan biyaha markay soo karkaraan insha allah waxaa sameynayaa hadda biyuhu ay soo karkareen bariiska oo aan soo dhaqo soo nadiifiyey aan ku shubayaa bariiska markuu bislaado waxyaalaha kale aa karinayaa meeshaas waxaa ku haystaa cambo iyo beetrootka waxaa waa qaybta barafka ah kasoo saaray freezaha kasoo saaray soo cambahaas iyo beetrootka rabaa inaa isku shiido cabitaanka ah ka sameeyo markaa shiidana waa miirayaa maasha allah cambaha waa soo fiiqa waa soo jarjaray beetrootka waa kusoo shubay markaas diyaar iigu yahay waa inaa shiida la ii dhiman bariiskaa kusoo laabtay bariiskii oo bislaaday maasha allah dabkaa ka dhigayaa isagana bariiska dabka markaa ka dhigay waxaa soo saartay paan waxaan ku shubayaa wax yaroo saliid ah paanka waxaan ku shubayaa wax yaroo saliid waxaa rabaa inaan ku hagaajiyo ama aan ku shiilo chickenka saliidda markaa kusoo shubto waxaa kusoo shubayaa wax yaroo basal ah wax yaraa basasha la daboolayaa si ay soo yara shiilanto basasha markay soo shiilantana waxaa sameynayaa chickenka ku darayaa soo hadda paanka markaa saliid kusoo shubay waxaan kusoo shubay basashi waxaan u kaadinayaa wax yar ama waxaan sugayaa wax yar si maxaa la dhahaa basasha u yara bislaato ama u yara shiilanto basasha markay soo yara shiilantana waxaa sameynayaa chickenka ku darayaa chickenkii oo si caadi qiyaasi ah usoo jarjaray chickenka markaa ku shubo waxaan ku dari doonaa carfis alle carfiskaa rabtid adiga aa haysatid aa ku darsanaysaa soo markaa chickenka saas ugu soo daro waxaan kusoo darayaa carfis toonta shiidan paprika wax yar cusbo wax yar yogurt plain ah ama caanaha fadhiyo aan kusoo darayaa markaa intaas kusoo daro oo kula walaaqana waxaa sameynayaa waa daboolayaa ilaa chickenka uu qoyaanka dhan dhameysto ama dhacaanka dhan dhameysto uu qalalo
maasha allah chickenkii hadda markuu soo qoyaanka soo dhamaystay ama soo bislaaday maasha allah waxaa ku daray barbarooni wax yar barbarooni aa ku dara waa kula yara daboolaya maasha allah diyaar waaye waa ka dhigayaa markaa kasoo gediyey chickenkii isla paankii haddana waxaan ku shiili rabaa spinach ama koosto wax yar saliidaa ku shubay waxaan ku darayaa wax yar saliid markaa ku shubay wax yaroo basala wax yaroo carrot si dhudhuban aan usoo jarjaray aan ku darayaa intaasaa ku yara shiilayaa basasha markaa ku daro carrotka ku daro oo yara shiilo waxaan kaloo ku dari doonaa yaanyo aan soo shiiday 2 xabo yaanyo aan soo shiidaa ku darayaa meeshaas waxaa rabaa inaan ku shiilo spinachkaa rabaa inaan ku shiilo waa yara qaleynayaa tomaatada aan soo shiidaan ku shubayaa kabacdina spinachkaa ku dari doonaa wax yar oo cusbaa kusoo daray kabacdina saasaa u shiilayaa zaa'id ma u karinayay zaa'id hadaa u karisid spinachka waxaa waaye fitamiinada ka dhimanayo si oo qiyaas ah u shiilayaa marka xoogaa ceyriinkana ka bo'o biseel zaa'idna aysan noqonin waa ka dhigi doonaa insha allah wax yaraa hadda daboolayaa ilaa 5 daqiiqo markay bislaatana waa ka dhigi doonaa waa isla arkeynaa maasha allah spinachka saasuu biseel ku yahay waa ka dhigayaa asagana maasha allah qadadii oo dhammaystiran cabitaankii oo soo shiiday spinachkii chickenkii ukuntaas biyaa kusoo kariyay iyadana doorshihii maasha allah qado dhammaystiran alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin intii haysato ilaahay ha u ziyaadiyo ha u barakeeyo intaa haysanna ilaahay ha siiyo alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin waxaan idin leeyahay intaa ku kulmi doono muuqaal kaleeto cusub insha allah biidni illaahi kariim fii amaanillaah